waxay dabeeyeen oo ay biyo-gelin u sameeyeen abeesar rajo ka lahayd dunida xayawaanka 5 nin oo u dhashay dalka Hindiya. gobolka Karnataka ee koonfurta Hindiya waxa ka soo yeedhay dhacdo argagaxiyo oo dalulan ku kaliyeysay bulshada gobolka Karnataka markii qaar ka mid ah kaalin qaadka gobolkaasi kufsi iyo karkaar jabina ay isku kaamil yeeleen bahal yar oo kaymaha daaqsin u joogtay. 5 nin oo Hindiya oo la kala yiraahdo Sandeep, Mahesh, Akshay, Rohan Birwala iyo Ramesh Chak ayaa kufsaday qoratada dunida ugu weyn taasoo ku sugnayd kaymaha Sum ee ku yaala gobolka Karnataka ee dalka Hindiya. Saraakiisha ilaalinta kaymaha gobolkaas ee dalka Hindiya ayaa soo xidhay 5 nin kadib markii ay kamaradaha laga daalacdo muuqaalada ay ka arkeen kuwaas oo ay ku xidheen kaymahaas raggan oo biyo-gelin u sameynaya ciidanka booliska Hindiya ayaa rumaysan in raggani falkan foosha xun ay u sameeyeen sabab la xidhiidha ama salka ku haysa khuraafaad iyo caqiidooyin aan waxba ka jirin kuwaas oo aan sida kufsiga xayawaankan raggu ay ka heli karaan cimri dheeri. madaxda iyo